waa Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo maanta rabo inuu shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba uu ka warsiiyo ama kaga warbixiyo xaaladda maanta wixii laga qabtay COVID-19 maanta marka arrinkaygu ma ahan kaliya wacyigelintii laakiin waxa la wixii shaqo ah ku wajahan COVID-19 ayaa raba maanta inaad la qaybsato waxaan ka bilaabayaa hortiisaba COVID-19 muxuu yahay waa cudurkii aan shalay sidaan sheegay coronavirus uu keenay kasoo bilowday China magaalada la Wuhan December 2019 adduunkeena ku faafay maanta dhimashadiisu waa sidaan sheegay 2 milyan iyo 300 iyo xoogaa ku weeye 400 ku dhowdahay dhimashaduna waa tiro badan tahay wadanka maanta ugu dhimashada badan leh uguna tirada badan dadku ku dhacay waa Mareykanka waxa ku xiga Spain Talyaani intaas jirta calaamadaha lagu yaqaan maxay tahay calaamadaha lagu yaqaan waxa idiri waa qandho badan waxa weeye madax xanuun waa leeyahay waxa weeye qufac qalalan number 3 waxay tahay neefto ku qabata saddexdaas hadii la helo qandho tiro badan qufac qalalan iyo neef ku qabata cudurku waa ku saaran yahay waxa intaas sii dheer dadka gobolkiisa soo yeelan karaan kuwa gobolka muruq xanuun yeelan karaan urka qofka inuu wax uriyo oo uu aad iyo aad ugu dhibtoodo iyo cunto cunidii oo dhadhankii ka asagana ka daciifa intaasna waa leeyahay cudurku wuxuu u daran yahay dadka qaba cudurrada kale haddaad qabtid dhiigkar sokor qabtid da'daadu ay weyn tahay haddaad kansar qabtid haddaad neef qabtid iyo wax kaloo la mid ah badan ba haddaad qabtid waxaad ogaanaysaa inaad u nugushahay in cudurku uu kugu xumaado haddaba marka waxaan dadka u sheegnay haddaad calaamado isku aragtid waxaad wacdaa numberka 449 saasaan ismir talooyin baad helaysaa haddaba maanta waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo waxa laga qabtay ilaa iyo haddeer oo dadka kalsooni sii karaya inay adeegsadaan adeegyada badan ee maanta aan halkan ka sheegayo waxaan ka bilaabayaa isbitaal Martini waxaad ogtiin isbitaal Martini waxa lagu dhawaaqay inay tahay meesha la isku geynayo dadka cudurka qaba baaritaankiisa haday noqoto iyo daaweyntiisa haday noqoto halkaas la isku geynayaa haddaba maxaa Martini waa hore wararaa soo duulay maxaa la qabtay waxa la qabtay Martini inuu san ahayn Martiniga hore maanta waxa dawladda dhan waxay leedahay Martini kow waa Martini laba waa Martini saddex waa Martini haddaan asagaas xoog la saarin oo wax laga qaban waxa halka ka muuqata kalsoonidii shacabku uu qabay inay yaraanayso haddaba maxaa la qabtay qalab xoog la ayaa la geeyay Martini qalab xoog la geeyay maanta waxa ku yaala makiinadii hadii hawadu ku qabato lagu xiri lahaa ku yaala maanta waxa ku yaala testiga meesha baaritaanka lagu sameeyo lahaa kugu taala waxa kugu yaala oxygen ku yaala generator cusub la geeyay musqulihii waa la hagaajiyay biyihii waa falti way shaqaale heegana oo 24 saac shiftiyada isku bedelaana waa ku dhex jooga marka maanta Martini 1 Martini 2 Martini 3 waa hirgas shaqadana wali faanoola farkama qodnaa weeye wali aad loo sii wadaa oo waxaan rajaynaynaa standard caalami ah inaan gaarsiino laakiin maanta qalab iyadaas oo dhan waa ku yaala iyo shaqaale tababaran oo u tababaran bukaanka inay qaabilaan bukaanku wuxuu u baahan yahay inuu sameeyaan oxygen hadduu baahan oxygen ka siiyaan ventilator hadduu baahan ventilator la siiyo horta taas waa isbitaal Martini marka waxa jiri doona qaybo la shaqeeya marka ay jiri doona ilaa isbitaalku haddii la yiraahdo asaga la isku geenaa wax walba waxa laga yaabaa inay baahidiisa baahidii ay ka badnaato haddaba waxa la sameeyay Martini 2 oo Martini 2 qalabeen xoog la ku socota 200 sariir waa la diyaariyay oxygen balanti oo waa leedahay meeshaas waana isbitaal banaadir qayb kamida wali waxa ku socda habeentii ku socota laakiin dadku kalsoonidii hadda maanta dadku waxay aadayaan isbitaal Martini waxa kale oo jira isbitaalka Yardimeel qayb kamida in ayadana loogu talagalay cudurkan COVID-19 coronavirus ku keeno
ayaa asagana loogu talagalay oo asagana qayb ka mid ah haddii alla idmo waa la adeegsan doonaa haddii baahi ka badani isbitaal martiini ay timaado intaas horta waa isbitaal martiini kaliya isbitaal martiini waxaa dhinac socda call center oo maxaa tahay call centerku waa numberka aan leenahay 449 waxaa laga yaabaa dadku markii hore xoogaa inay ku dhibtoodeen oo farsamo awgeed ay tahay 100 jeer la hagaajiyay maanta haddaa call centerka wacdid 449 haddaa wacdid waxaad helaysaa jawaab degdeg ah jawaabtaasi waxay gaartaa ilaa iyo gobolada waxaan rabaa inaan idin sheego aad iyo aad loo soo wacaa shalay oo kale 3200 qof ku dhawaad aa soo wacay call centerkaasi maxay tahay macluumaadka aad ka helaysaa haddaad horta wacdid waa jawaabta lagu siiyo maxaad u baahan tahay lagu leeyahay haddaad sheegatid calaamadihii oo tiraahdo calaamadaha saas leeyahay takhtar baa kaa qabanaya talo weyn ku siinaya haddaad u baahan tahay cudurka kugu bato oo aad neeftu ceshoon iyo jirtana ambulance lagu soo dirayaa ku qaada oo ku geeyo meeshii haddii dad kaa dhinteen oo aad u cabsanaysid dadkii meydkaas dhintay uu gaarsiiyana wuxuu kuu soo dirayaa talo ku siinayaa ambulance lagu soo dirayaa dadkii meydkaas dhaqi lahaa oo duugi lahaa diyaar ku ah marka call centerku maantay waxa weeye hab casri ku samaysan yahay marka maxaa adna waajib laga rabaa waxaa laga rabaa hadda ummad badan baa meeshii waxayso baahi u hayso u baahane inaad adiguna aadan dheeldheel tijaabo iyo dheeldheel aad u wacin laakiin intaasoo dhan takhaatiira heegan ku ah oo tala bixin u jooga ambulance heegan ku ah oo u jooga inay qofkii u baahanna soo qaadaan kii dhintana ay tala siiyaan sidii loo duugi lahaa ay ka tala baxshaan iyo sidii la yeeli lahaa iyaduna maanta diyaar kugu ah haddaba haddaad calaamadaha isku aragto wax 449 takhtaraa kuu soo boodaya jawaab talo ku siinaya haddii lagaa dhintayna wac haddii cudurku kugu darsadayna wac waa lagu soo qaadayaa ilaa lagu keeno meeshii oo qalabka iyo waxa u baahneed lagugu sameeyo testigiina lagugu sameeyo intaasna lagugu sameeyo intaas marka waxaa maanta aan ku soo kordhinaynaa waxay tahay shaqadii aan qabanaynay oo maxay tahay shaqadii waa run bay noqotay waa ka baxda sheeko waxaan u baahanaa marka gacansiinteena oo maxay tahay gacansiintan aan ka baahanaa walaalayaal ha qarsanina cudurka Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaad qarsataa waa ku qurunsadaa si aysan marka wax ku qurunsan ya tala lagu siinayaa wax 449 dada heegan ku ah oo diyaar ku ah inay ku adeegaan oo talo wanaagsan ku siiyaan wax intaas maxaa dheer shaybaar casri ah loo yaala oo shaybaarka casriga waxa la yiraahdaa real time PCR waxa weeye waa midka adduunka u dambeeya hal saac iyo baro ku qaban karaa jawaabta lagu heli karaa shaqo fiican ka qabta shaqaale tababarana u jooga waxaan rajaynaynaa intaas kuma ekaanayna inaan dhaqaajino badino shaqaalaha ku adeegaya waxay leeyihiin PPE sita macnaha protection loogu talagalay qofka dhan waad ogtiin takhaatiirta iyo kaadiriinta caafimaadku hadda dhifeeska koowaad ayaga ku jira inaan ayaga naftooda badbaadino waa u baahanaa marka iyadana waxaad ogaanaysaa halkaas la joogto ambalaasyada dadka ku imaanaya waa dad ayaguna ayaga dhan qafilan oo naftooda difaacaya adigana inay ku adeegaan diyaar u ah fadlan waxaan ka codsanayaa oo marlaad ka codsanayaa inaad dadkaas gacan siisaan inaad adeegaas la idin qabanayo aad gacan siisaan ka warbixisaan wixii talooyin diyaaraan u nahay adduunka wax dhameystiran ma jiraan khaladaad waa dhici karaan waa saxaynaa laakiin maanta martiini sidii hore maahan waxaan codsanayaa inaad kalsoonid ku qabtid oo aad tagtid oo aad hormuud u noqotid oo aad ka warbixisid oo aad aragtid markaa dadkaaga geysid faa'iidada badan iyo isbeddelka ku yimid intaasaan maanta rajaynayaa intaasaan rabaa inaan maantay aan ku soo koobno warbixinteenaan maanta waana mahadsantihiin ilaahay idinkiisana waxaan rajaynaynaa in dhagaha aad furtaan oo wacyigelinta u furtaan haddaad calaamadaha waa ku celinayaa haddaad qandho badan qufac qallalan iyo neefta ku qabata aad isku aragtid waqtigan hadda la joogo waxaad wacdaa 449 waxaad raacdaa talooyinka dhakhaatiirta meesha fadhiya ay ku siinayaan raac haddii dad ku joogo ama aad isku aragtid xaaladdu kugu xuntahay
afar sagaal waxaa ku imaanaya tiim u diyaarsan inay ku adeegaan oo ku wadaan oo meesha dadka lagu daaweynaya la geeyo meeshaasay ku yaalaan ventilatorradii oxygenkii monitorskii iyo adeegyadii badnaa oo kale loo baahnaa iyo dhakhaatiir joogto ku ah oo kuu shaqaynaya 24 saac ku shaqaa oo ku yaallo testigii lagugu baari lahaa oo sheegi lahaa cudurka inaad qabtid iyo in kale ayaa ku yaalla waxaa kaloo jira haddii dad kaa dhinto tan waxaa laga yaabaa marar gobolkood qofka aad guriga ku haysatay in caawi ku soo boodo cudurkii oo uu dhinto 4 waxaa ku imaanaya koox ayadana u tababaran sida meydka loo dhaqo sida meydka loo duugo oo ambulance wata ayadana ku imaanaysa hadda maanta intaasi waa shaqo isku xiran waxaan rajaynaynaa rajo kale dadku gelinaynaa inaanu isbitaalaad kalena ka fakarayno isbitaalaadka dowladdu ay leedahay in la qalabeeyo oo loo qalabeeyo saas waxaa ilaahay idinkas iyaduna soo bixi doonta in isbitaaliska oo gaarka loo leeyahay aan xoojinno ka maarmi mayno inaan xoojinno oo dhakhaatiirta BPE-doodii iyo waxay ku shaqeey lahaayeen aanu u raadino iyo rapid testing ay wax ku baari lahaayeen si confirmationka markaas midkaan kale loogu daayo waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu